qofka waxa la tusaya markuu naf baxayo waxaan adduunka arki jirin buu arkaya oo uu maqli jiray hadduu muslim ahaa uu rumaysnaa baa la tusaya caalam kale waxa la tusaya naarti hadduu naarta meel ku leeyahay wal ciyaadu billah hadduu jannada meel ku leeyahay meeshu jannada ka digi lahaa baa la tusaya malaa'igtii buu arkaya malaku mawdkii buu arkaya nafta ka qaaday malaa'igtii buu arkaya naftu markuu malaku mawdku qaado ka sii qaadi lahayd caalamkaas uu arkaya qofkii haddii ilaahay u caraysan yahay iyo waxa inkaarta u diyaarsan ba halka laga tusaya haddii kale markaas wajiga mar badac u dhufanayaayo ma aqbali karo inuu meeshii eego dab ololaya iyo god ololaya ka hortiisa ka muuqdo haddiise wax wacan oo janno iyo khayr iyo u muuqdaan uu farxaya dad badan baa iyagoo qoslaya dhoolla caddaynay naftu ka baxdaa nasalu allaha bixusni alkhaatima haddii qofku adigoo la jooga ama dadkii ehelka ama islaamku ay la joogaan nafti ku soo xaadirto oo sakaraadkii iyo geeridii ay ku soo xaadiraan dadka la jooga qofkaa dhimanaya waxaa waajib ku ah oo laga rabaa inay xusuusiyaan qofka naf baxaya kelmadda laa ilaaha ila allah kalimatu tawxiid inay xusuusiyaan oo tawxiidka u qabtaan see ugu qabanayaan marka ما وحال أورنا يا وريا هبلو ورا شهادة ورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ورعين كادم يا أورنا ما يوحي علماء وحكفي عن إن لحسوسيو أكتس اللغوص هذا القاضي والله يلاهده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قفكني وباحة دقيا مركين لغو بوقو لغو قيلية ورسيدان له ورمح الله مسنته وعين كان وwaxa lama rabo waa la xusuusinaya dhagiisa la maqashiinaya haduu dhaga culus yahay afka dhagta loo saaraya la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah wal maqashiinaya qofka waa nabigu wuxuu alayhi salatu wasalaam laqinu mawtaakum ullaqima oo umeeriya kuwiina dhimanaya la ilaha illa allah eraygaas qofka ilaahay ugu khatimo kelmadda laa ilaaha illa allah ilaahayna ka aqbalo jannada ilaahay buu gelaya subxaanahu wa tacaala